waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidee u aragtaa dawladda cusub iyo dastuurka Soomaaliya ee xilligan muxuu ahaa dastuurka hadda waa dastuurku waa lagu heshiiyo waa yaalaa kowdhe haye qof walba fikradiisu ka qabaa maaragtay dastuurku siduu u qoran yahay iyo dhiska uu ka hadlaayo qof walba fikrad buu ka qabi karaya anigu mawqifkayga waa horaan ka caddeeyey oo waa la og yahay inaanan la dhacsanayn aynala ahayn maslaxaad Soomaali oo danta guud ah nidaamkan federaalka ah laakiin dabaysha hadda jirtay ayaa khasab ka dhigtay in la qaato marka ilaa iyo la ogaanayo dadweynuhu waxa ay ka qabi karaan sidiisa in loo daayay noqonaysaa laakiin anigu mawqifkayga waan ka hadlay dastuurka meesha nidaamka muxuu ahaa federaal iyo unitary central system siday kala yihiin marka sidee is leedahay waa ay ahayd in loo suubiyo waya anigu waxaan qabaa waxay ahayd dawlad central ah inay jirtaa nidaamkan federaalka ah oo hadda la sheegayo wax weyn oo dadweynaha uu u kordhinaya ma jiraan niman qabqablayaal oo raba inay ku ugaartaan oo ayagu baawar ku qabsadaan regionada ayaa wata nidaamka kan dadweynaha haddii la xisaabtamo wax weyn oo ay u kordhinayaan ma muuqdaan haddeer waxaynu aragnaa 2 region baa hadda muddo dheer nidaamkan gooni u haystay dhulka kan sheeganaya inuu goostay oo anigu weli aan ku magacaabayo north west muxuu ahaa region of Somalia Somali Republic iyo nidaam waddankan kale isaguna regionadaas hadda magaca Puntland sheegtay labadoodaba hadda muddo dheer bay joogaan nabad waa jirtaa oo dadweynaha sheegaya nabad inay jirto laakiin nabadaas in dib haddii loo fiiriyo xukuumadaha ka dhisan ma ay leh abaalkooda kuma qaadan karaan dadweynaha ayaa iska leh nabadda raba waxay u baahan yihiin waxay eg tahay oo muuqataa marmar badan oo rabasho iyo wax dhacaan waxaa lug ku leh nimanka madaxda ah oo dawladda sheeganaya yaa madax ku leh dadweynuhu weeye waxa nabadda rabaa marka haddii ummadda international community hadday wax badan regionadatan ay ku ammaanto nabad oo relative siday ku magacaabeen nabad adigu markii loo fiiriyo sawdka kale nabadu inay ka jirto laakiin nabad taama aan lagu magacaabaynin waxaa iskale waxaa bilada waxaa iskale dadweynaha iskale dawladaha xukuumadaha jira wax weyn oo ay ka qabaan ma jiraan dambiyaalo badan baa dhacay mid ay wax ka qabteen oo muuqda ma jiro marka midaas anigu waxaan leeyahay nimanka madaxda baa ku ugaaranayo oo raba inay baawar ay meesha ay ku haystaan laakiin dadweynuhu haddii la xisaabtamo dan weyn oo ugu jirta nidaamkan federaalka iyo kala goynta ma jirto waan ahayn dadka oo maaragtay suntatan qabiilka la gelinayo oo loo ekaysiinayo region hebel haddaan nahay innaga qabiil baanu meesha innaga weeye oo qabiil kale korkayna kama fuulayo nin kaloo madaxayna madax noqon maayo weeye waxaa loo dulduulayaa laakiin dan guud oo ama nationala ama regionka aqliimiyada moogta erayada dan guud oo anigu aan u jeedo ma jirto waxaa laga yaabaa inaan gabsanahay laakiin anigu saasaan u arkaya dawladda federaalka ah muddo dhowr bilood ay hadda jirtaa oo sanad ka yar sidee u aragtaa aniga dawladda tan muxuu ahaa siyaalo badanna meelaha qaarkoodna waan ku ammaanayaa siyaalo badanna waxaan isleeyahay anoo u ogol in dhibaato jirto oo waddanka qaru burburay oo muddo yar haddiiba wax la taaban karo weyn ay sahlanayn in la qabto anoo qiraya oo og taa midda oo aan ku waafaqsanayn dad badan oo eedo badan u jeedinaya xukuumaddan hadda cusub oo jirta aan ku waafaqsanayn yani haddana waxaan u jeedaa waxyaalo badan oo sida dawladdu u maamulaysa hadda si ka fiican si ka duwan loo maamuli karay oo aniga ila tahay sida aan sheegaya haddii loo maamuli lahaa inay arrintu ka sahlanaan lahayd sida hadda ay tahay dawladduna magac siyaadaha inay ku hesho ma ogi aan waxba uga dhumeen anigu saasaan u malaynayaa inay aan u saluugsanahay muxuu ahaa xukuumadda xaggeeda tafsiil haddaad i weydiisad wax waa ka taataaban karaya maxaa ka mid a waxyaabahaasi waxaa ka mid a xukuumadda tan horta waxaan hormarinayaa waxyaalaha aniga aan ku ammaanahayo arrimaha dibadda muxuu ahaa xukuumaddan uu madaxda u yahay muxuu ahaa presidentaha hadda joogo xasan sheekh maxamuud uu madaxda u yahay waxaan arkayaa
guulo badan oo fiican baa yaa la gaaray muxuu ahaa ictiraaf baa la helay oo dawladda tanu loo ictiraafay inay tahay dawlad runtii sida dawlad ahaan jirtay inkasta oo la ogyahay in burburusa jiro oo la ogyahay waddanku inuu hadda gacanteeda usan ku wada jirin haddana ictiraafka loo ictiraafay inay tahay dawladdii runta ahayd oo Somali Republic ka jirtay waa wax weyn weeye midaas marka siday ku timid midna waxa weeye maanta barisantaan anigu weliba siinaya siyaasadiisa qabow oo dibadda uu ku qaabilay shakhsiyadiisa suu ku muuqanaya iyo hadalladiisa iyo waxaa iyaduna qiimaheedana in la ictiraafo dadweynaha Soomaalida oo meelu joogaba waddanka gudihiisa iyo dibaddaba xukuumadda tan aad baa loo taageeray aad iyo aad baa loo taageeray dawladaha caalamiga ahuna kama doqon kama aha waa dareemayaan sida dadweynuhu dawladda tan ula hayo way ku taxgelinayaan oo waa la ogyahay marka dawladdu waxaan qabaa muddadan hadda ay joogtay siyaasadda dibadda ah inayan ku xumayn oo wax ugu faari karo oo alxamdulillah la oran karo inay keentay baan qabaa waxaa ii haray muxuu ahaa siyaasadda gudaha awal buuda horta barnaamijka jira waxa weeye Afrika waxay iska noqotay meel nin kaliya xukuumaya muxuu ahaa barisantii wuxuu tagayaa haddaad fiirisid barisantuu imadsuu muddada uu joogay haddii la talin lahaa muddaduu Soomaaliya joogay iyo muddada uu dibadaha joogay ama waa isu dhow yihiin ama waxaa badnaan kara muddada barisantii dibadda u jira oo safarro dibadda u jira safarrada tanuna qiimahooda ay leeyihiin anigu kuma jiro dadka qiimo yaraynaya qiimahooda ay leeyihiin laakiin waxaanan diidanahay aniga aan ila qumanayn safarkii walbaba barisantuu inuu tagaa aniga ilama qumana meesha prime minister baa jira foreign minister baa jira siyaasadda dibadda hadii laga hadlaayo marka barisantuu gudaha weeye muhiimka siyaasadda dibadda ah ma qurux badnaan karto haddii siyaasadda gudaha ayan fiicnayn laakiin siyaasadda gudaha hadday fiican tahay siyaasadda dibadda waa la qurxin karaya laakiin cagsigeeda ma aha haddii siyaasadda gudaha uu xun tahay siyaasadda dibadda ma fiicnaan karayso anigu waxaan rajaynayaa barisantaha iyo raggiisa hadda la shaqaynaya midaas inay fahmaan baan anigu jeclaan lahaa oo ay qiimo weyn siiyaan gudaha asasikooda inay saaraan intaas horta waa siyaasaddii dibadda ayadoo barisantaha iyo safarkiisa iyo meel walbaba muxuu ahaa isagu inuu joogo ay tahay anigu waa iska qiimeynaya laakiin barisantuhu inuu isha ka daboosho ma ahayn siyaasadda gudaha inay muhiim tahay waa kow mideeda kale arrimaha hadda xiisadu ka taagantahay waxa weeye arrintan jubbadan dhulkan jubbooyinka hoose la leeyahay oo intii muddo hadda xiisadu oo attention dhan ka taagan yahay arrimahan waa aniga ila tahay xataa adigu waxaad weydiinaysaa in u weyn tahay waan u malaynayo waxa weeye anigu waxaan u arkayaa mabda'iyan marka hore aasaaska hore dhulka kan Jubbaland waxay ka mid tahay jamhuuriyadda Soomaalida ayay ka mid tahay oo presidentyaashan iyo dhiska baarlamaanka hadda jooga ay dawlad u yihiin bay ka mid tahay maamulka goboleedka oo la sheegay oo dastuurku sheegayo oo dawladdu ay tahay inay ixtiraamto ilaa iyo dastuurka si kale wax laga dhigayo ama sidiisa loo aqbalayo dawladdu waxa weeye inay ixtiraamtaa dastuurka kan siduu u qoran yahay kow marka laakiin dawladdu waxay jid ku leedahay waxa weeye inay xaq u leedahay iyadu inay noqoto maamulaya guudka ayada qof aan ahayn inuu dawlado kale inay maamulaan jubbooyinka oo iyagu u sameeyaan nidaamka wax loo dooranayo iyo sida loo dooranayo ma suurto xaq ma aha dawladda Soomaalidu inay ogolaato ma aha dadweynaha Jubbalandna haddayan doonayno waddanku inuu kala burburo inay tixgeliyaan weeye markii hore oo nidaamkan soo baxay jubbooyinka haddaanan gafsanayn waxaa sameeyey hawshata waxaa sameeyey igad baa samaysay igad yay tahay igad runtii waxa weeye Kenya iyo Ethiopia weeye runtii arrinta Soomaaliya ku saabsan weliba haddii laga hadlayo labadan dawladood waxay ku heshiiyeen oo iyagu hoostooda ka yihiin inayan dawlad centraala oo xoog leh Soomaaliya marna inayan ka dhisminin waxa la og yahay weeye waxa la inkiri karaya maaha hadday iyagu inkiraanna waa iska leeyihiin qof Soomaali oo aan doqon ahayn oo Soomaali inay noolaato raba oo sharaf yeelato waa og yahay marka iyagu waxay ku dadaan marka dawlad centraala oo aan xoog lahayn afka inay ka jirtaan service laakiin ayan
awood ayaan jirin dawlad Soomaaliya oo central oo xoog leh ayaan jirin ayagoo midkaas ka qaadaya ayay waxay ku dadaaleen inay xoojiyaan arrintan hadda Jubbaland geographically meeshay ku taalo dhinacna Ethiopia xuduudka la leedahay dhinacna muxuu Kenya xuduudka la leedahay marka waxay ku ugaaranayaan inay leeyihiin annaga waxaanu rabnaa waliba Kenya ay ku ugaaranaysaa waxaan rabnaa buffer zone inay jirtaa wax la yiraahdo buffer zone waa meel annaga inaan muxuu shabaab iyo wixii kale inay noogu soo gaban oo xisbiga kanaanu yaan listeena regionka kan waxaan u dooranaynaa dadan annagu rabno ayaga naga celinaya shabaab inay noo imaanin annaguna ayaga nufuud ku yeelanayna oo dawladda Soomaalida inkastoo afka laga leeyahay dawladda Soomaalida ama Jubbaland jubbooyinka madax ka ah haddana runtii ay tahay diska jabbu meesha ka dhismaa inuu noqdaa badiba mid u jilicsan oo u tunjilicsan muxuu ahaa Kenya iyo Ethiopia kusoo waliba Kenya marka midaas ma shaqaynayso dadkuna inay ogolaadaan maaha mana u malaynayo dadweynaha oo dhan inay isla qabaaniin meesha xoogaa qabiil baa lagu ugaaranayaa waxa la leeyahay muxuu ahaa daarood yahuuya laga hadlaya runtii hadday tahay afka lagu caddeeyo laakiin waa xataa waa muuqataa marka Puntland iyo Jubbaland daarood baa degan oo awalta muxuu ahaa Muqdisho lagu baabi'iyay oo xoolahoodii la qaaday oo dadkoodii la xasuuqay marka maanta in aanu mar dambe Muqdisho hawiye afka u gallo ma yeelayno way arrinta socotaa midaas muxuu anigu ba dadku waa ku ugaaran karaan laakiin wax shaqaynaya maaha marka haddii la doonayo qabiil gooni wax u noqon karaa ma jiro runta la isku sheego la daarood wala hawiye wala qabiil kale oo la gooni dawlad u noqon karto oo taagnaa karta oo dadka kale ku addooma jirayso waa wax la og yahay weey maxaa xalka u aragtaa adiga aniga halka waxaan u arkayaa waxa weeye awal buude horta bal bareesantaha iyo dawladdan hadda jirta nidaamka Jubbaland waa ka xumaaday ma ay ahayn inay waa ahaayeen inay markii hore ay diidaan ay yiraahdaan maamulka la dhisay oo annaga aanan ka talagelinin ma ixtiraafsanin afka xataa si fiican anigu ma maqal boog iga baxsatayana ma ogin ma maqal ka bacdi waxay direen muxuu ahaa wufuudyo badan baa la diray oo adarkaysid qabiil iyo inay lu kuleeyihiin oo u jeeda dadku doqol maaha loo jeedo in nimankan waxay dhisteen oo Axmed Madoobe Sheekh Axmed Madoobe madax ka yahay oo lagu toomayo inay Kenya wadato in laga hortago bay ay ku dadaaleen marka intaanoo kala dad baa la diray muxuu ahaa in la meeshii la baabi'iyo kuwaan weli Kenya meeshii xukunta oo haysata Kenya waa doctor hadeer inay yiraahdeen Axmed Madoobe iyo wixii soo baxay baanu yaan ixtiraafsanahay ku faraxsanahay ayay yiraahdeen ayay waxay doonayaan weeyii anigu midaas Kenya jid ku siin maayo Kenya inay soo farageliso arrimaha daaqiliga Soomaaliya jid ku siin maayo laakiin dawladda ruuxeeda Soomaaliyeed maamulku waa ka xumaaday aniga say ila tahay arrinta tan hadda Axmed Madoobe bareesantaha ku noqday muddo dhan baa laga shaqaynayo la waday ayaa la waday ka bacdi xukuumaddu waxay ka tiri ma maqal waxay uga hortagtay ma maqal waxaan kaliya maqashiisanahay laba goor marna waxay dirtay nin oo anigu ixtiraam aan u hayo oo aadiyaa la yiraaho Ismaan Kalluun ayaa la diray waxa la yiri governor isaga meesha madax ka noqonaya ayaa la yiri marka haddii nimankan mar hore gobol ma la isu diyaariyay Ismaan Kalluunna meesha kuma u dhalanin ma ogtahay kuma u dhalanin laakiin nin ixtiraam loo Soomaalinimadiisa iyo wanaagiisa shaki la gelin karo maanta ama la quuri karin weeye waa ma shaqaynin aniga marka waxay ilaahay dawladdu hadayba nidaamka federaalka aqbashay inay tiraahdo markii horeba nidaamka federaalka baan anagu waa ogol lahay dastuurka asaas sheegaya laakiin waxaan ogol lahay dadka gobolka degan oo dhan wax la isla wada og yahay oo la isla boqolkiiba boqol lama filan karo dadku inay isku meel isku raacaan laakiin aqlabiyada meel ay isku raacsiisan tahay in la helo ayaan doonaynaa inay yiraahaan bay ahay ma ay samaynin prime minister ka tagay yaa isaguna tagay aniga say ila tahay sidii arrintu ku fiicnayd inuu sameyn baan anigu u malaynaya aadna waa muddo dheer bay qaadanaysaa haddaan raadiyo tiinta la yiraahdo marka dawladda waxaa qumaneyd inay tiraahdo annaga dadka jubbooyinka deganow dastuurku siduu sheegayo yaan annagu adkaynayna oo daba taaganahay laakiin sida wax maamulku noqonahayo dawladdu inay madax ka noqoto weeye dawladdu inay ogaato weeye gobolada soo baxaya inay aqlabiyadii dadka gobolada degan
aqlibiyadoodii inay sidaas rabaan inay dawladdu sugno oo goboladu muqtanac ku tahay dawladdu satisfied ay ku tahay inay jiraan ayaa loo baahan yahay marka dawladdii korkeedii yaa gobolada taniyo waxaa lagu dhistay marka dawladda ma ogoleen anigu inay aqbasho meel ayagu maamulka ay wax ku lahayn inay aqbasho maahayn laakiin technicadu waa xaaladda sida wax loo maamulayo way ka xumaatay laakiin dawladda mudane ra-iisul wasaare dawladda way ku celcelisay inaanay aqoonsanayn maamulka jubbooyinka loo dhisaayo iyo hanaanka oo u socdo aynan aqoonsan doonin haddii wax la magacaabo laakiin maya inay aqoonsan tahay maahay waxay ahayd ma ahayn fili hanaanka hadda axmed madoobe uu baresantaha ku noqday muddo badan buu soconayay anigu ma maqal nimanka gadaal ka soo baxay oo nin walba sheegtay baresante inuu yahay bare hiiraale iftiin laba nin oo kale ma maqal hal ninaan maqlay oo Kenya degan oo maalqabeen ah oo waddankaas ugu dhashay oo markii hore israaxay oo dabadeed markuu meesha tagay oo arkay dabayshu inay axmed madoobe wadato iska aamusay oo ka tanaasulay laakiin nimankan kaloo hadda afarta oo saddexda ka oo soo baxday ma jirinin magacooda waxaya ma jirinin waxay tusaysaa aniga in ay yihiin dad dawladdu meesha usoo dirtay inay muxuu ahaa ay xasilaan inay ka dheeraatan kumana fiicna dawladdu inay ka shaqayso wax xasilan darri keenaya kuma fiicnayn dawladdu waxay ahayd iyagoo aan kuwaan aan waxba la dirin aan wax la dirin inay yidhaahaan dhiskaas annagu dadka raqbiyadiisa waa rabnaa rabitaankiisaan yaan ka dambaynaa laakiin maamulkaas annagu oday kama ma odaynaynin mana hubno dadweynaha meesha jooga oo dhan inay muxuu ahaa isla wada ogol yihiin marka waxaan rabnaa annagu aan diidanayn gobolka in la dhiso waxaanu rabnaa inaan annagu noqonnaa waxa hortaaga ka ah dhiska hadda la dhisayna ma aqoonsanin inay yidhaahaan bay ahayd kabacdi iigad baa fadhiisatay waxaa la gooyey markii dambe la isu tegey waxaa la gooyey wafdi ka socda Jubbaland in muqdisho loogu yeeraa oo ay tagaan oo dib u heshiisiin la sameeyaa ayay ahayd ilaa maanta ma maqla aniga wufuud baa Kismaayo tegaysa ma ogiye wufuud baa Kismaayo looga yeeray oo muqdisho imaanayso shir baa lagu qabanaya ma maqal aniga ilaa maanta dawladda kama maqal adiga maxaa xal u aragtaa hadda meesha arrinta ay marayso jubbooyinka waxaan u arkayaa dawladdu inay horta aqoonsato weeye gaf inay samaysay inay aqoonsato weeye dadka kan ay dirtay iyo baresentaniyaasanimada la magacaabay inay taageerin weeye inay shir isugu yeerto weeye shirkii igad ay qoysay oo dadka kan madaxda Jubbaland loo yaqaano loo yeero oo baresentuhu iyo xukuumadda Soomaalida ay sameeyaan lis ay yiraahaan annagu annina magaalo waxay nala tahay wafdi intaas oo kala oo tirooyinkaas inay yimaadaan muqdisho daydkaas aan annagu fix gareynayna muddo macquul ah la islaahay kabacdi in la ogaado reactionka muxuu ka imaanaya dadka qayb wixii ka yimaada adjustment in la fiiriyo weeye wixii la isku xalaajin karayo laakiin shirkaas oo muqdisho lagu qabto oo dawladdu daacad ka tahay inay la sameeyo weeye dawladduna waa inay saartaa tuhmada ah inay iyadu doonayso inay wax maruqsato inay ka taxadarto weeye aakhirkeena waxaan u baahannahay dawlad iyo dadka isku kalsoon baan u baahannahay dawladdana kalsoonida tan baa danteedu ku jirtaa hadhowta aan ka baahi beello dad ajaanib oo inay annaga dadba noo maamulaan oo na leexleexiyaan wax laga gaashaanto weeye waa kaas aniga aragtayda waa mahadsantahay mudane waxaa jirta arrinta hadda Puntland markaan usoo noqono sidee u aragtaa Puntland si fiican ma u socotaa howlaha dimuqraadiyadeynteeda mise weli waxaa kaaga muuqda in halka ay gaari lahayd aanay maamulka u wadin madaxweynaha muxuu ahaa Cabdiraxmaan waxaan u jeedaa hadda wuxuu iska dhigay wuxuu ku muuqanayaa nin oo champion nin u dadaalaya gobolada nidaamka gobolka federaalka ah xoojintiisa xoog buu saaray Jubbaland sida ay hadda meequfkaas la doortay sideeda inuu u adkaan kariyo Nairobi buu tegay waa meel buu ka cadeeyay laakiin aniga say la tahay muxuu ahaa waxaad moodaa anoo muxuu qiimo weyn u hayaa president Faroole haddana waxaan isleeyahay wayaalow ma ka maran tahay campaign oo siyaasi ah Cabdiraxmaan Faroole inuu arrinta qabiilka ku sameeynayo oo uu rabo doorashadiisa soo socota inuu muxuu ahaa guul ku helo oo dadku ugu saxbiyaan maxaa jira daarood nooleeyo kale inuu ku muuqdo iska dhigo inuu ku muuqdo nin daarood daafacay oo maanta u soo baxay inuu noqdo ayay u dhawaan kartaa aniga dareenkayga weeye marka midaas wax weyn dhismayso waxa wax dhisayo waxa weeye nabad guud in la helaa dadkii in la isu keenaa in la heshiisiiyaa dadka madaxda oo maanta dadka u madaxda inay ogaadaan weeye mas'uuliyad saaran
haddii nabad darro dhacdo qofna xiir ku lulan maayo, qofna caanan dhami maayo bilaasha. nabaddaa weelbaba yaa muhiima, qawmiyada iyo magaca yaa muhiima. haddii la kala baxo oo gobol la noqdo, gobol hadhowto waddan kale yuu hoosta gelaya. haddaynu haynaa waa ujeednaaba marka haddaynu rabno sharaftii waddankeena iyo qiimihiisa inaan soo nolayno, heshiis guuda in la doono weeye. dawladda tan oo hadda dhisanna waa inay iyadu noqotaa maamulka madaxdiisa inay ku muuqataa. aniga waxay la tahay waxyaalo badan oo caddaysa hadal munaasab oo markii loo baahan yahay dawladda tanu ma hayso ilaa iyo hadda. runtii maskaxda Soomaalida ma ay gelin baan ku iri dawladda Soomaalida waxyaalo iska administration oo iska yar iyo ma ogiye leadership oo vision oo weyn ma muuqda aniga runtii hadda iga rabto. waa maadsan tahay. markaan kasoo tagna arrimahaasi Soomaalida hadda waxaad xustay arrinta gobolaysiga oo kale. sidee gobolaysiga markay timaado Soomaalida gobol loogu qaybin karaa oo gobol walbaahi ay suuragal ku noqon kartaa inuu maamul suubsado oo uu ismaamulo? anigu waxaan qabaa dadka horta inay iyagu ismaamulaan waa muhiim weyn oo hawlahooda u gaarka ah oo hadday municipio laga bilaabo municipalities laga bilaabo ilaa iyo district ilaa iyo regionada qolo walbaba inay iyagu ay awood u leedahay gudahooda wixii hawshooda iyagu inay maamulan karaan. midaas shuruuday ku xiraanaysaa. shuruuday ku xirantahay waxa weeye good administration in la helo weeye ilaa good administration in la helo weeye. ma garatay dawladda federaalka inay geesinimo geliso weeye. dawladda hadda centraalka inay geesinimo geliso weeye. inay muxuu ahaa xukunka inay ballaariso oo dadka localka ah waxa iyagu qabsan karaan inay u madax bannaan yihiin oo qabsadaan oo aan lagu faragelin oo caawimaad lagu siiyo intii awoodda tahay ayaa loo baahan yahay. kabacdi arrinta muxuu ahaa gobolka anugu uma jeedo waa qabiil weeye. meeshaad gobolkaa tagtidba qabiil baa ka soconaya. qabiil wax dhisi maayo. haddii berrinta qolahomaba loo daayo oo federaalka ay noqoto ayagaa hoostooda isku soo jeesanaya. hadda waxaad moodaysaa muqdisho baa lala dirirahayaayo jubbaland oo dhan inay israacsiisan tahay ama aqlabiyada jubbaland israacsiisan tahay. laakiin hadhowto ma dhaxaysa midaas waa la iska soo horjeesanaya. axmed madoobe hadda aqlabiyada haysta waa laga soo horjeesan doonaa. saasaa dhaxaysa. marka dawlad centraala wax dhaama uma muuqdaan anugu. in laga baxa weeye gobolka iyo waxa kan in fiiro ka weyn la yeesho baa loo baahan yahay. midnimada Soomaaliyeed baa muhiima. madaxnimo daacada oo karti leh oo leadership ayaa loo baahan yahay. midda la rabo oo dhan midaas weeye. leadership oo hoggaan toosan daacada dadaalaya aan waddanka dadku cadaalad samaynaya in la helo yaa danta Soomaalidu ay ku jirtaa hadal iyo dhammaantiin. waa maadsan tahay. ka waran nolosha hadda qurbaha marka aad fiiriso muddadii Soomaaliya aad joogtay sida hadda xaalku yahay maxaad dareentaa marka aad hadda qabowgan iyo halkan aad joogtid? ma istiraahdaa waa fiicnaa lahayd xilligan inaad Soomaaliya joogtid? dareenkaas ma ku galaa mararka qaar? dareenkaas way galaa. waddankaygu weeye. xayaatadaydii oo dhan iyo nafsadaydii oo dhan meeshay ayaan wixii anigu aan wanaag gaarayna meeshaan ku gaaray. wixii aan dhib soo mutayna meeshaan ku soo mutay. marka meel kaloo guri aasaas oo saldhig oo runa oo aan Soomaaliya ahayn anigu ma leeyahay. laakiin Soomaalida aan leeyahay iyo Soomaalida maanta dad badan oo indhaha ku hayaan waa different isma leh. shughul iskuma leh. anigu Soomaalida aan arko inaan rabo waa ruuxiisa hayo waxa weeye marka ii muuqato Soomaali qabiilka oo muxuu ahaa qabiilka kanu muddo way iska jiri doonaa. laakiin uusan qabiilku noqonin diin oo kale hadda sidoo maanta u yahay oo kale aad iyo aad uma bogi karaayo. Soomaaliyana ilaahu yaa igu celiya ma oranayo inta midaas jirto. muxuu ahaa dadka Soomaalida oo qabiil waxay ka helayaan ma jiraan. dadka Soomaalida maanta waxay arkeen dawlad bay iska qaateen iyadoo dawladu oo joogaan oo geed la abuuray oo dadka la abuuray oo ku dhintay oo qaar badan u dhintay ayuu la harsanayo weyn bay u yimaadeen. geedkii siday u harsan lahaayeen bay laayihiin. qof walba hadda wuxuu rabaa geedkaas inuu salka ka gooyaa. haddii salka laga gooyo qorrax baa imaanaysa. waxa loo tartamayo oo dhan meesha waa ka baxayaanin. ma ay dareemayaan dadka qaarkood ma bareemayaanin. afmishaariin ilaahay iyo islaana noqon yaa dadka hoggaan u noqonaya oo been u qubaaya oo dadkii oo dhan duufsaday ayaa waray
dadka kalena aqoon yari baa haysa qabiilka wuxuu noqday wax meel haddii la taabto soo jiidanaysa dadka waxaasoo dhan wax ma dhisayaanin haddii la rabo Soomaaliya anigu Soomaalida aan jeclaan lahaa inaan wadankeeda aan ku noqdo maaha midda maanta joogta adeer gacalisa